casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay qaabka table loo soo geliyo Microsoft Word. Dabcan waxaa laga yaabaa inaan u sharaxayno qaab aad basic ah ama aad maaragtay ibtidaa'i ah, qaab aad bilow ah. Qofkii yaqaana oo professional ku ah Wordka already wuu yaqaanaa. Laakiin sababtan saan ugu sharaxayno waxaan rabnaa in dadka bilowga uu ku yahay Wordku ama aan garanaynba qaabka loo isticmaalo inay si maaragtay aad u cad ay ugu fahmaan. Waxaynu ka bilaabaynaa marka waxaad tegaysaa insert, kadib waxaad soo dooranaysaa waxaa furaysaa meeshan ku qoran tahay table. Marka aad furto halkan waxaa ku yaala boxyo fara badan. Tableka marka la sameynayo kooban yahay waxa la yiraahdo rows iyo columns. Columnsku waa xariiqaha taagtaagan, rowskuna waa kuwa jiif-jiifa. Tusaalahaan waxaa u baahan tahay table ama jadwal ka kooban 10 column iyo 5 rows. Maxaa sameynaa marka? Geeskan ka soo bilaabaynaa. Hadda hal xabaan haysanaa. Waxaan dhinaca u soconaynaa 10 inta 10 gaarayno. Hadda kow baan joognaa, labo nagu qaybsamay, 3 nagu qaybsamay, 4 5 6 7 8 9 10. Waxaan haysanaa 10 column ayaan haysanaa. Iyo maxaan kaloo baahannahay 5 rows ama 5 xariiqood box oo horizontal ah. Okay, kii koowaad waa haysanaa marka waa kaas. Marka dhinaca jiif ahaan loo eego waxaan haysanaa hal jiif oo maaragtay horizontal ah ama dhinaca u jiifa. Hoos markaan u soconno waxaan helaynaa 2 box oo jiif-jiifa. Jiif ahaan marka loo eego waxay noqonaysaa 2 box oo jiif-jiifa. Markaan sii soconno waxay noqonaysaa 3 box oo jiif-jiifa. Haddaan si kale u niraahno waxaan haysanaa 3 rows ayaan haysanaa. hal xabo kale marka ku sii daro waxaan haysanaa 4 rows. hal xabo kale haddaan ku sii daro waxaan haysanaa 5 rows. Awal waxaynu dalbanay ama aynu rabnay inaan soo gelino table ama jadwal ama jaantus ka kooban 10 column iyo 5 rows. Hadda aan tirino. Columnsku marka muxuu yahay? Columnsku waa kuwan taagtaagan. Kuwan taagtaagan ayaa waxa la yiraahdaa columns. Hadda calaamad gooni ah u samaysano casaankan saan u sameeyno tusaale ahaan. Kuwan taagan waxa la yiraahdaa oo aynu casaanka inta hadda cas oo guduudan oo taagan waxa la yiraahdaa column. Kan jiifa oo qaabkan ahna saan u jiifana waxa la yiraahdaa row ama rows markay badan yihiin. Marka kan jiifa waa row, kan taagana muxuu yahay? Column. Inaga marka waxaynu dalbanay oo hadee aynu soo gelinay table ka kooban 10 column oo taagtaagan. 10 column marka aad maqasho maxaa ku soo dhacaya? Kuwan taagtaagan oo tusaalahaan casaanka dinu marsan yahay ayaa ku soo dhacaysa. Ayaynu dalbanay 10 column iyo 5 row. Kuwa jiif-jiifa oo waxay yihiin 5. Okay, aan tirino marka kuwa taagtaagan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kii ugu dameeyay oo ah number 10. Marka sidaa darteed waxaan haysanaa jadwal ka kooban 10 column ama table ka kooban 10 column. Marka waa proof garaynay ama waa cadeynay in tablekeen uu kooban yahay 10 column. Waxaan hadda cadeynaynaa oo jeeganaynaa ama hubinaynaa in jadwalkeen uu ka kooban yahay 5 rows. Sababta waxaan rabnay waan soo gelinay haddaan ku qorano table ka kooban 10 column 10 lagu dhiftay 5 rows. Jadwal ka kooban 10 column iyo 5 row. Marka 10 column waynu cadeynay, waynaga tirinay. Haddana waxaan hubinaynaa oo cadeynaynaa inaan ku haysano 5 rows. Okay, kan koowaad oo saa u jiifa muxuu noqonayaa? Waa rowga koowaad. waxaan noo maraysaa bilmetran 40 oo kale noo maray. waxaan haysanaa kii koowaad
kii labaad haye kii saddexaad haye kii afraad iyo ugu dambayn kii shanaad marka waxaynu caddaynay in ama aynu qeexnay ama aynu proof garaynay in tablekan jadwalkan jaantuskan aan meesha soo gashanay uu yahay 10 lagu dhiftay 5 oo u dhiganta ama la mida 10 column oo taagtaaga oo wanaag farta casmarinay oo tirnay in 10 column tahay iyo 5 row oo kuwa jiifka ah ama horizontalka ah saasan ku caddaynay okay qaabkaasi waa qaabka koowaad ee xogtaada aad soo gelin karto table ama jadwal ama jaantus aad soo gelin karto okay waxaynu geli doonaa oo tagi doonaa qaabka labaad ee loo soo geliyo table ee xogtaada ama documentigaaga word halka aynu tagaynaa waxaan tagaynaa insert kadib waxaan tagaynaa meeshan ku qoran tahay table kadib awal waxaynu isticmaalnay qaybtan sare ayaynu isticmaalnay hadda ma isticmaalayno waxaan tagaynaa meeshan ku qoran tahay insert table oo la micno ah geli table ama soo geli table dhag markaan siino waxay noo soo baxaysaa daaqadan yar marka noo soo baxdo waxaa ku qoran halka marka halkan aan ka rabo marka inaan bixino meesha ku hadda akhrido number of columns waa column waa soo sharaxnay dabcan si details aan soo sharaxnay oo aad u faahfaahsan waxaan halka gelinaynaa number of columns inta column aan u baahanahay tusaalahaan kii hore waxaynu haysanay imisoo haysanay 10 column ayaynu haysanay okay hadda marka waxaan gelinaynaa inta column aan u baahanahay waxaan gelinaysaa tusaalahaan 10 kii hore mid la mid oo kala sameeynaa 10 column haye sidoo kale hoosna maxaa ku qoran number of rows inta rows ama xariiqaha horizontalka ah intaan uga baahanahay imisaynu u baahanahay rowskana waxaynu u baahanahay tusaalahaan 5 waa isla kii hore oo kale kii hore qaabkiin u gelinay qaab ka duwan ayaynu gelin laakiin macnuhu waa isla kii hore kaliya waxaa duwan qaabka aan marayno ama qaabka aan isticmaalayno saan soo gelino okay inta marka aan sameeyno waxaan leenahay kadib waxaan ku dhufanaynaa okay ayaan ku dhufanaynaa tag markaan okay ku soo dhifano waxaa noo soo baxay table ka kooban 10 column iyo 5 rows ashkana maanta intaas ku egyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته